أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب يا صحافة وآدي آد سلامتين. ماشي إن جونا وحرنتي جودي كمشة كغرقة. ساكا وانا سيوكي يرني. وانا كلنا قلنا يجي كمشة كوهالك كان. وحنودينش سيوكي يرني عن ينسينه ور كسابسن. وقتها iyo ma garanaysaa hawlihii aan soo qabanay waan bariyahan baan ka shaqeynay marka waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha guddiga komishanka qaranka guddiga doorashooyinka qaranka mudane Cabdulqaadir Iimaan warsame oo hay'adda idin noqday wararka iyo waxa uu noqday bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad baan idin soo dhaweynaa waxaan maanta isugu keenay xarunta guddiga doorashooyinka qaranka maanta oo salaasaha bishuna tahay 22 bishii Afraad 2015 inaan halkan idinku soo jeedino waqtiga ay aan ku cayinnay in doorashada dhacayso sidaad ogtihiin waxaan idin soo gudbinay muddo ka hor in diiwaangelintii ay waddanka ka dhici doonto lagu galayo doorashadu 22 Julaay 2015 dhammaan doontana 30 Julaay 30 November 2015 waxaan kadib hawl soo galnay iyo annagoo falanqeynay sidii aan u gaarsiin lahayn waddankan qaranka Soomaaliland in doorasho ay dhacdo kadib waxaanu maxayday soo saarnay ama aan go'aaminay ama aan cayinnay inay doorashadii dhacayso waqtigaanu idin sheegi doona hadda waxaanu la tashanay gudoomiyaasha xisbiyada qaranka iyagoo aanu isla go'aaminay ama aanu ku baraarujinay waqtiga dhici doonto doorashadu iyaguna ay nala qaateen sidaasna aanu ku wada heshiinay waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa kadib برسكن وما محيدي سويريستن عند السوق يعني بدي كدور شوي كقرن كسومالي لان كدي مركي أي أركان بدي لهير قرن وحر سعر أيهين معمولين ده إياه كسوري ده حولها دور شوي كقرن كسومالي لان مركا مارجني قدر كقوات حير لمبر لبعتن صوب حي لبقول يكو يقدر كقوات حير لبعتن لبعتن حريشين لبع صانع بحي لبع كل شن مركان وارجني جدي أهان قدر كسيدات حير كلامر لبعتن صانع بحي لبع كل يكو وكميشو كوكو أجبرية إنه عيمه وقت يقبسوا بيصدور الشر الصومالي لان مدحتوية ده يتقولها وكيل ده كاسودي جاي كميشو كدور شوي كقرن ayaa ayimaya taariikhda la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka Soomaaliland waxaanay ku soo bixi doontaa dekreeta madaxweyne markaan aragnay qodobka 14aad farqadiisa koowaad ee xeer lambar 20 soo baxay 2001 oo komishanku awood siinaya in uu cayimo waqtiga doorashada la qabanayo iyadoo madaxweynaha u gudbin doona si uu dekreeto u soo saaro markuu halkay guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland qodobka 38aad firqadiisa labaad ee dastuurka oo tilmaamaysa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha oo isku mar loo codeynayo kuna salaysan habka u codeynta listada waxaa la qaban doonaa bil ka hor dhammaadka muddada xilka madaxweynaha guddiga doorashooyinka qaranku markuu arkay qodobka 8aad ee xeerka doorashada golaha wakiilada xeer lambar 20 xariijin 2 ee soo baxday 2005 kaasoo dhigaya komishanka doorashooyinka qaranku ayaa soo cayimaya taariikhda la qabanayo doorashada golaha wakiilada waxaanay ku soo baxaysaa dekreeta madaxweyne sida ku cad qodobka 24aad ee dastuurka
guddigu markay aragtay qodobka 12aad firqadiisa labaad ee dastuurka oo dhigaya sidan madaxweynaha ayaa ku dhawaaqaya doorashada golaha cusub bil ka hor dhammaadka muddada golaha hore markaanu aragnay qodobka 26aad firqadiisa koowaad ee wax ka beddelka iyo kaabista xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha Somaliland xeer lambar 37 oo soo baxay 2007 oo tilmaamaysa in doorashooyinka qaranka ka codayn karo oo kaliya qof muwaadin ah oo ku diiwaangashan diiwaanka codbixiyaha kadib markaan tixgelinay duruufaha farsamo iyo sharci ee ku gadaaban geedi socodka dimuqraadiyadda Somaliland iyo doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo qabsoomi lahaa 26 Juun 2015 sidaa daraadeed wuxuu komishanka doorashooyinka qaranku soo saaray in doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada ee u qorshaysan in la qabto 26 Juun 2015 oo ah bil ka hor dhammaadka muddo xilliyeedka madaxtooyada iyo golaha wakiiladu ay farsamo ahaan iyo sharci ahaanba qabsoomi kareen komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu fulinayaa waajibaadka sharci ee ku xusan qodobka 7 firqada 2 wax ka beddelka iyo kaabista xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar 37 soo baxay 2007 oo tilmaamaya komishanku waxa xil ka saaran yahay kaydinta xafidaadka iyo soo saaridda liiska kama dambaysta ah ee diiwaangelinta codbixiyaasha 6 bilood ka hor maalinta doorashada iyo qodobka 26aad firqadiisa labaad oo dhigaya liiska diiwaangelinta codbixiyaasha waxa soo saaraya komishanka doorashooyinka qaranka 6 bilood ka hor xilliga doorashada qodobadaas oo ku waajibinaya komishanka doorashooyinka qaranka inuu soo saaro liiska kama dambaysta ah ee diiwaangelinta codbixiyaasha 6 bilood ka hor maalinta doorashada sidaa daraadeed waxa uu komishanku sharci ahaan qaban karaa doorashooyinkii madaxtooyada iyo golaha wakiilada dhammaadka howlgalka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo daabacaadda liiska kama dambaysta ah ee ku beegan 30 bisha November 2015 oo lagu daray 6 bilood ee uu sharcigu jideynayo 6 bilood ee uu sharcigu jideynayo sidaa daraadeed waxaan mudanayaa halkan idinku soo gudbinaynaa oo guddida doorashooyinka qaranku uu cayimayaa maanta oo bishu tahay 22 bishii Afraad 2015 in ay qabsoomi doonto doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiiladu 1 bisha Juun 2016 sidaas aan ku soo gudbinay